السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد ميل بلجوكتان وإن ودا سلامي سلام كبعدي سيدي بلانتو أهيد بوحا نوسي سعوني تحانيه كساب سنة dadka toxic ama satan dadka narcissist loo yaqaano ama narcissistic personality traits haysto oo lamaanaha markuu yahay ninku ama xaasku uu yahay narcissist. marka narcissist hore u soo qaxnay waxa weeyaan qof asaga uun iska fikiraya wixii dan u marka fikiraya qof kasto ka hormarnay qofku doona ma ahaadee. marka waxaan rabaa inaan ka hadlo xaas ama nin narcissist waxyaabaha laga yaabo inuu ku sameyn karo xaaskiisa. waxyaabaha kamidka waxa waaye horta intaan loo gudbin in la noqdo husband aaninaya xaaskiis ama inta la isku cusub yahay ma fududo qofku haduusan de khibrad hore u sii lahayn uusan de qof iska aad u feejigan uusan ahayn oo ama ilaahay qof u sakhraysan ahayn ma fududa in la dareemo waayo ila fiican laga qaatay jecel yihiin ayagoo dad fiican aan ahayn Soomaha ama dad dhaqan xun marka saas awgeed waxay isku dayayaan intay awoodaan inay qariyaan qofka ay yihiin shakhsiyadooda runta inay qariyaan bay isku dayayaan oo fake nimo ay kula dhaqmayaan qofka. horta waxay ku fiican yihiin way ku darsayaan qofka tahay iyo waxa jeceshahay iyo maxaan ku raahdaa waxa dabeecadaadu say tahay waxyaabaha ka xanaajiya waxyaabaha aad mustaqbalka saa u aragtid iyo future dreamskaaga waxaaga waxyaabaha aad qiimeysid oo qadarisid hab dhaqameedkeeba jeceshahay dadku u dhaqmaan waxyaabaha baad nacabtahay dhaqso horta ku darsayaa laana qofkan wuxuu ku jiraa mission buu ku jiraa markuu ku darso ayuu wuxuu sameynayaa doorkaas buu ciyaarayaa in qofkii dream personkii aad ku hamiyeysay oo ku riyoon jirtay your entire life ayuu noqonayaa. qofkii waxa arkaysaa ku hadalkaaga qadarniyo dhageysanaya qofkii waxa arkaysaa xal kula raadinaya dhinac walba waa iska kali garayseen hadaad helo diinta jecel hadaad fan iyo parties jecel fan iyo parties kula jecel wixii uu koobiyeenaya automatically and then uu iska dhigayaa adiga sidaas oo kale inaad sidaadoo kale inuu yahay soo ku soo jiito waa ta koowaad. markuu ku soo jiitay marka wuxuu isku dayayaa inuu feelingkaas inuu jiro ayuu isku dayaa inta hore dhan jiro oo de personalitygaas de qofkaada dheh wow ilaa asaas isku dhayn isla markiiba buu isku dayaa intuu awoodo inuu jiro de hadaba jilkaas mask aan loo jeedin buu ilaa xiran yahay wajigiisa runta qofka ma aragtide maskigaas baa marka maalinba in yar soo durkaya maalinba in yar soo durkaya oo xilliyaad ida arkaysa oo dileen qof aan ahayn ma iska dhigi kare aktarada markay filinka dhameeyaan guryahoodii way ku noqdaan dadkoodii bay ku soo noqdaan marka maski maalin meeyba ka soo durkayso waxa arkaysa kiyo mesela waalidkii ama la hadlaya ama maxaan qof saaxiibkiisa la hadlaya qof waalid ugu aadan mesela la hadlaya arkaysa tusaalaan ka wadaya oo aflagaadeynaya qof miskiin oo meel jid iska taagan intuu tagay aflagaadeynaya dhama shaqaysatid maalin dambe waxa arkaysa qofkiyo aan tukanaynin mesela tusaalaan ka wada maalinba in yar ayaa runtiisa ka arkaysa goor ayna waxa waaye xariif fandal kala dhaceen oo qofkan aad isku dheeraateen too late inaad tiraad I'm gonna back up now qofkan is acting weird you invested tasaddexaad dhacaysa waxa waaye markuu meel kugu soo hubsado qofkan goolkiisa uu gaaro goolkaas oo ahaa in uu ku soo xiragaliyo ama iska dheer oo been uu kugu soo xiragaliyo uu acting uu kugu soo xiragaliyo oo uu kugu soo xiragaliyo maxaan ku raahdaa qof uusan ahayn shakhsiyad uusan ahayn oo iska ka dhigo ilaa qofka bini'aadamka diintan waxay dhahaysaa khuluq iyo ama waxaad ku qaadataa khuluqiisa ama diintiisa ama maxaan ku raahdaa maalkiisa hadduu khuluqiisa marka qofka khuluqna waxa waaye how you carry yourself as a person hadduu marka qofka khuluqiisa uu act garaynay then taas waxay ka soo baxaysaa wada noolaashihiina soo ma markii aad too late ay noqoto oo maxaa helay nin xaaskiisa aad noqotaan ama xaas iyo ninkeedii aad noqotaan markaas he doesn't care maski hadduu soo dhaco hadii kale he doesn't care waayo waxay dhahaan qoladahan ku takhasusay ama bade aad research ugu sameeyay ama khayr ugu sameeyay dan bay gaarayaan dantoodii marka ay gaareen qofkan supply bay ugu magacaabaan supplyna waxa waaye de qof tubo basically tubo qofka nuugayo tubadiisi marka waxa u tahay nafaqada tubadiisi waxa u tahay aqliga tubadiisi waxa u tahay laga yaabo maal iyo xoolo tubadiisi waxa laga yaabo inuu tahay magac iyo inuu kugu gaaro tubadiisi waxa u tahay inuu de naftiisa ayaa waxa u tahay banaan maxaan ku rahaa shalowga qofku qalbigiisa waa shalow qalalan oo banaan oo caag ilaane
qalbigaas baad caadi qof ah inuu noqdo uga dhigaysaa skeleton shallowness-kaas buuxis dhahaya waxaad ku buuxisid ilaa meel baa banaane ayuu raadinayaa ilaa markuu xoogaa buuxiyo adigana aad qofkaagii miskiinka ahaayo bilaa waxba aan ka ogeyn qofka matid waad kusoo fahantay laga yaaba inaad isdhihin waa narcissistic laakiin something is up, something is wrong waa ujeedaa something is maxaan ku rahdaa not right waa dareemaysaa waxbaan kuu cuntamayn at that point waxaa laga yaabaa in uusan kala jeclayn inaad fahantid qofka runta ah uu yahay oo uu fake uusan iska dhigayn qofka uu yahay inaad fahantid ayaa laga yaabaa sooma waxaa imaanaysa marka adiga as shakhsi qofkii lamaanahii caadiga ahaa qofka xanuunkaas aan qabin ahaa qofkaas maxaa ku dhacaya marka wuxuu isdhahayaa weliba ma adaa waana mise cadan baa laga heesi oo joogto ah baa 24 hours ku jirto true face-koodana sida ugu fudud oo lagu fahmi kara waxa waaye markaad tiraahdo sidaan waxay yihiin ama tiraahdo sidaan ima cuntamaysaani ama aad wax ku qabsatid adiga lagu soo dhiganayaa in lagu bahdalo oo lagu caayo oo maxaan ku irahdaay waxba yahay tahay laga dhigo in maxaan ku irahdaay lagu dhaho marba dhinac maskaxda laga wareeriyo inta lagu yiraahdo waxyaabaha adduunyada ugu outrageousan oo qof bini aadam ah laga qaadan karin intuu qofku dhac kugu siiyo qofka aad jeclayd oo islahayd moodo iyo raxmo iyo guri idinka dhaxeeyay iyo reer idinka dhaxeeyay uu kugu yiraahdo waxyaabo aadan ka filanaynin oo hadhowna amaba inkirada sida caadiga ahayd la yaqaan ama uu dhaho ana runtan baa sheegayaa basically uu qiranaya uu ku leeyahay oo kugu yiri la kuwaana runtii runta waxaan way badan tahay deal with it bay ku leeyihiin waxay kala dhigi karaan which is like a favorite ay aadka uga helaan waxa waaye too sensitive xasaasiyad badan tahay daciif badan kaftan ma qaadatid waxyaabo insult oo meel uga dhac inta lagu yiraahdo baa hadhowna waxa la dhahayaa kaftan ma qaadatid waxyaabahaas yaryar oo dhan marka waxay sameynayaan adiga in ay shakhsiyadaadii iyo adaygaagii iyo qofnimadaadii tartiib hoos kuu soo dhigaan oo qof aadan ahayn ay kaa dhigaan oo wax aadan qaadan kari lahayn waagi hore oo wax aadan qaadan kari lahayn oo dhan aad aqbashid taasna waxay kaloo khatar u tahay markooda hore stage-ka hore ayaa waxay ku dadaalayaan in ay kaa fogeeyaan dadka aad jeceshahay inay kaa fogeeyaan waxyaabaha kuwa kale oo noloshaada ku jira aad samayn jirtay bay kaa fogeynayaan hadday ahayd shaqo aad jecleyd aad ku jirtay hadday ahayd maxaan ku rahdaa wadan aad jecleyd oo deganeyd hadday ahayd ehel iyo qaraabo maxay asxaab way kaa fogeynayaan si ay ku cidlo ku geystaan markay intay cidlo ku geysteen ku bahdilayaan ku dhahayaan oo adaa sensitive been iyo maxaan ku rahdaa inkiraad kugu sheegayaan wixina aadan aqoon u lahayn adigoo dhan waxaad ku jirtaa diiqad iyo dhibaato iyo wax aadan sharaxi karin iyo what's going on halkee wax ka khaldameen halkee wax khaladkan ku ka bilowday qofku baad maanta waxa isku daysaa inaad qancisid qofkuna waligiis ma qancayo qof intuu been iyo kugu soo xiragashtay mask asagoo xidhan aan asaga ahayn kaa fogeeyay dadkii iyo magaaladii meesha jecleed tusaale ahaan haddoo dayn magaalo ahayn aad isku magaalo tihiin one way or another demand garaynaya in aad ka fogaatid dadkaas oo contact la lahaanoo dhahin oo maanta dhanbo excuse uu qofku keeno waxaas anaga u baahanna xaggaasaan dhacayna maanta in halkaas aadna waa dadkaaga dhan inuu kaa gooyo haddana markay saas dhacdo garigoon isku soo noqotiin asagana uu maaskiga ka dhacay ad markaad wax ku qabsatidna dee kugu rage garaynayo ku cunayo ku baabi'inaya amaba ku gaslight garaynayo ku dhahaya I'd never said that oo ku dhahaya runtii way I'm just telling you the truth that's how it is deal with it ku dhahaya asaga baad marka qofkan haysataa wuxuu doono wax ku ahaade sooma aan ku attach garaysay laga yaabaa caruurii reeriyo maxaad haysataan rag iyo dumarna way ka siman yihiin it's not like dumar kaliya ay victims meesha yihiin raguna way yihiin victims of course dan soo summarize gareeyo ama aan soo khulaaseeyo ama aan soo koobo waxa waaye face aysan lahayn bay gashtaan mask aysan lahayn bay gashtaan way ku mirar gareeyaan adiga maxaan ku rahdaa
fiiriyaan waxyaabaha aad jeceshahay iyo waxyaabaha aad neceb tahay say waxyaabaha aad jeceshahayna kaaga ilaaliyaan waxyaabaha aad neceb tahayna kaaga ilaaliyaan waxyaabaha aad jeceshahayna u sameeyaan intay ku soo xaragashanayaan way fikiraynayaan you're gonna be so wow qofkan xaguu ka imaaday ilaa qofka caadiga ah waa laga yaabaa inaad isku dhacdaan isla marantaan isku fikir noqon weydaan may qofkan personality-giisa runta ah maba arkaysid daba inta hore dhan barashadaas uu ku baranayo they are good in reading people na waxa waaye way ku wanaagsan yihiin ileene inay fahmaan dadka because say u mirror garayaan bay rabaan ileene hadhow wuxuu u isticmaali doonaa weapon later on labo uu kaa fogeynayaa network iyo maxaan ku rahaa secure circle-kaagii iyo waxaad taqaanay uu kaa fogeynaya ku cedlaynaya saad asaga uu mooyay cid kale aadan ugu baahanin saddex tartiib ayaa maaskigii uga soo dhacaya marka aad isku kaliyeysataan realitygiisa afar realitygiisii runtiisii marka la iskugu imaado oo tidhaahdid dagaalka iyo aflagaadadii iyo walaalo this is I did not sign up for this marka tidhaahdid walaalo waxaan ugu sameynaysaa intaasaan walaalo waxaas kaaga maqalmi ama walaalo waxaas kaaga maqalmi marka tidhaahdid and then uu ku cuno uu dhaho murankii iyo dagaalkii gaslightingkii iyo waxaad ka hadlaysay ma naqaan iyo adigaa sensitive iyo adigaa maxaan ku rahay xeesaga dhacday iyo qof intuu marka saas oo dhan soo wada sameeyay asaga kaligiis aad qofka meesha ku haysatid uu ku ignore gareeyo inaad tartiibiin aad joogin ka soo qaado silent treatment uu ku sameeyo ma as wax ka hadlaaya ma caawa iyo berri haddii aan isla hadlaynin oo maxaan ku raadayaa wixii khaldamay laga xalinaynin oo wixii laga murmay la shaafinaynin shaqadiis maaha asaga dantiisa hadduu waayna dig iyo rig iyo caay iyo maxaan ku raadayaa alaab la laadiyo haddaan adiga lagu laadin iyo qaylo iyo maxaan ku radaa waa waray and as I said nin iyo naagba way leedahay way leeyihiin niman iyo naagaba laakiin si usoo kala baxdo ayaa kala duwan maybe insha Allah video kale kaga hadli doona hadii Ilaahay yiraahdo way kan iska dheeraaday chargerkiisa iyo isku baridiisa ayaa dheeraanaysa marka walaalayaal waxaan idinka tegayaa mar labaad iyo aad ina u mahadsantihiin iyo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad caafimaad iyo farxad iyo baraaro iyo amal maqbuul wa ila wada salaam wa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh